halkan waa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho oo xilli habeen shaqaynaya caawa markii ugu horeysay muddo 27 sano kadib ah sidaad arkaysaan daawadayaal diyaaradda Duma Airways ayaa caawa soo caga dhigatay saacadu markii ay ahayd 8:10 daqiiqo diyaaradda waxaa saaran 200 oo qof oo 7 ka mid ah shaqaalaha yihiin 193 qofna ay yihiin rakaab diyaaraddu waxay ka timid magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia dhammaan dadka saaranna waa dad hujay ah daawadayaal waxaa garoonka diyaaradda dadka ku soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo mas'uuliyiin kale dawladda ka tirsan iyo agaasimaha hay'adda socdaalka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka rakaabka oo dhan ayaa halkan jooga garoonka amnigiisa waa uu wanaagsan yahay shaqaalaha oo dhan garoonka waa ay ku wada sugan yihiin si caadi ayuu garoonka u shaqaynayaa xilli habeen ah arrintan ayaa waxa ay tahay guul weyn oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed maadaama garoonka xilli habeen uu shaqaynayo iminka waxaan la tahay qof kamid ah dadkii rakaabka ee Sacuudi ka yimid ku soo dhawo TV-ga qaranka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aniga oo xaaji maxamed maxamuud sanay ahna generaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan caawinta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay rakaabkii ugu horeeyay ee habeen madow ka soo degay 35 sano ka hor garoonka aadan cadde international airport aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaana rajaynaynaa annagoo taagan banka Carafaad ayaan u duceynay ummadda Soomaaliyeed qalbigooda in Ilaahay uu soo dumo in dawladdeena Ilaahay uu qawiyeeyo in dawladnimadii oo Soomaaliya kala dambeyntii ay soo noqoto oo awaamirtii iyo kala dambeyntii waana ku faraxsanahay boqolkiiba Ilaahay idinkiis waxaana rajaynaynaa Soomaaliya inay horukac iyo bashbash iyo barwaaqo ay gaarto wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaana la taagan ee wasiir ku soo dhawo TV-ga qaranka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay caawa habeen taariikhi ah waa habeenkii ugu horeeyay dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay diyaarad rakaab wada ee halka ka soo degto 200 oo shakhsi ayaa diyaaraddaasi saarneed sidaad arkaysa ayaga naftooda aad ay u faraxsan yihiin annagana waa faraxsanahay waxa mahad ilaah ka sokow amniga immigrationka dhammaan inta ka howlgalaysa airportka ayaan u mahad celinaynaa iyo dawladda noo suuragelisay inaan arrintan fulino ayaan aad ugu mahad celinaynaa ilaah ka sokow waaya wasiir bal dadka waxaad sharaxaad ka siisaa sawir ka siisaa garoonka xilligan habeenka ah ciidanka amniga iyo shaqaalaha ay sida u shaqaynayaan shaqaalihii oo dhan loogu talagalay inay dadka u khadimaan shaqada u qabtaan sida immigrationka caafimaadka nabadgelyada dhammaantood waa diyaar qoladii firefighters qoladii dabdamiska kuba mariinka badda dhammaan wixii oo dhan waa diyaar amisom iyagana sidoo kale waa inoo diyaar immigrationka oo isagana muhiim ah booliiska nabad sugidda dhammaan waa diyaar shaqaalaha airportka ka shaqeeya caadiga ayagana mar hore ayaa diyaar ahaayeen waxaan naga dhimanaa kaliya wixii sidii la isugu keeni lahaa caawina sida arkaysiin sin wanaagsan ayay inoogu dhacday wasiir caawa kadib waa shaqaynaya Soomaan garoonka xilli habeen diyaarad garoonku wuxuu shaqaynayay muddo habeenkii uu furnaa aan tijaabinaynay diyaaraduhu ka soo degayeen mar kastana way ka soo degaan hataa marna waxaa jirtay diyaarado meel ay ku degaan waayay inay halkan ku soo degaan si emergency ah marka caawa waxay noqonaysaa habeenkii officially loo furay si official ah loo furay oo dhammaan markii hore ayagoo fasaxaystay haddana ay arkaan diyaaradihii waaweynaa inay ka soo degayaan marka aad ayuu loo furan yahay caawa iyo wixii ka dambeeya waxaan la joogaa agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda gaashaan la sare Maxamed Aadan Jimcaale koob mudan ku soo dhawaysay TV waa maasanta oo Ahmed bal waxaad ka warantaa caawa diyaaraddan markii ugu horeysay xilli habeen ah garoonka ka soo degtay iyo dareenkaaga siduu yahay والله وهبين هذا منعكسن هذه هذا نقول فرحسناهاي إن أيربورتو باللابي هبين كي إن أي فلايت سو دجان كانت دولان وواحد بدل الأسبوعي بأدو فوقنا يمكن بيز أيربورت كان وحن ولبا حاول سودو إن فلايت كيبا إيرويز أو في السعودية أو لا بقول السجاشة ركابة وواحد هذا فرحنا وواحد هذا هبين يمالك بينها شغلين لو أديكو سراكيش يونا وديار هذه هذا هو ما علمنا وسارة جديد في عرق يدوك وهذه وصل شيء ورمي ديارسي وربورك ديارسي لأنه كنا وحن ديارنا واجد يعني رمضان وأنا واحد سومالي دورنا هي كنت هذه هذا سومالي دورنا دوين دورنا أنا كارهانا وليس بدن أيها ماني في سارن إيربوركا إذا واحد من نقطة إيربوركا وسراكيش كشغل سعدالك وهو كلا إيربورك وصارت
security-ga culays badan oo ka dega ayay noqonaysaa sababtu waxay tahay flights-ka ka dega maalinkii aad iyo aad uga badan yihiin capacity airportka marka habeenkii in la helo oo shaqada habeenkii airportka uu bilaabo wax weyn ayay soo kordhinaysaa waxay yaraynaysaa saxmadii culayskii waxay aad u qaaminaysaa baakinka diyaaradaha gaar ahaan inaga saraakiisheena socdaalka culayskii badnaa oo rakaabkii badnaa oo maalinkii culayskii howlihii jiray oo dhan ayaa kala yaraan doonaa alxamdulilah ilaaha mahad iskale caawa waxaan taagannahay airportka aadan cadde international airport hadda saacaddu waa xilliga geeska afrika soomaaliya waa 2 saac iyo bar waxaan u taagannahay waxa weeyaan diyaarad jubba ay leedahay oo airbus ah oo keentay xujey ka kooban 193 ayaa haddana soo gaartay oo magaalada muqdisho hadda soo degtay diyaaraddaasoo waqtiga loogu talagalay ku timid si loogu talagalana ku soo degtay si nabada alxamdulilah ilaaha aanu mahad celinaynaa بعدين وحاول عيد الله لا عيد كشغل يوم هذا إن شاء الله. أرنتن وزارة محي وقديم. أرنتن وزارة الدولة الصومالية أردن الشعب الصوماليات يجود أهم صومالي أردن وحاول يجن تقول وحشغلنا يا إيربورت كي هذا عدى international إيربورت سيدي هرب الله قبل لما أمريكا رئيس الوزراء يحوينا هاي إن إيربورت هذين فريا عدينا يسا أمريكا الدنيا international يا local وحنو عدينا إنه إيربورت فريا هاي هذين إكسودي كران وقت يربان يا رضا. First of all, I am very glad to meet you here in the night time. It's a big event. It's event very huge one and very important for Somalia, yeah? Because now you're more open. Now you're really international airport. Not only operation from sunrise to sunset, yeah? Now you're more open for the world, and to be honest, I'm happy because I'm not expected so good operation in the night time. Edge lights very good, very bright. Of course, it will be better in the future to have at least VOR or maybe ILS, but at least now it's acceptable. It's acceptable for normal operation. Yeah. My congratulations for all Somalians. عاوة وهابينكي نوجو الرئيسي 27 سنة أي هابين ديورت إن تشت أوين أو باسنجر ودا يسود دكتو فلله الحمد سيد نبض عيا ديورت كسود دكتي بايلوت كعيان وحي الرو أو رئيسي الله يا شيء مركو سود دكتي si aan u hubinno qalabkii aan rakibnay oo runwayga inay sidii loogu talagalay u shaqeynayaan pilotku war farxad loo siiyay wuxuu ii sheegay markii koowaad oo uu dul maray markii hore uu dul maray oo dhinaca badda ayuu ku degashada ku soo sameeyay markuu dusheena maray airportka dushiisa marayay 5,000 feet ayuu dhulka ka sareeyay wuxuu ii sheegay markaas inuu arkayay nalalka runwayga markuu soo jiiray uu soo deganayay wuxuu ii sheegay asagoo 7 kilomitir noo jira inuu arkayay nalalka loo yaqaano bubble lights oo diyuuradu ku degtaan iyo runway lights labada uu arkayay 7 kilomitir asagoo soo jira distance dhulkana uu jiro 5,000 feet marka waa calaamad guud ah operationkii waa ku guuleysanay qalabkii aan rakibnay oo loogu talagalay diyuuradu inay habeenkii isticmaalaan sidii loogu talagalay oo standardka ay u shaqeynayaan marka diyuuradaha kale iyo airlines kale dhammaantood waxay noo tahay farxad in pilotkii noogu horreeyay caawa noo soo degtay diyuuradaha kalena ay ku dayo doonaan hadduu ilaa yidhaah magacaygu waa axmed maxamuud waaye duuliyaha diyaaraddan haddirtan Juba Airways oo maanta caawa ugu horreysa muqdisho ka soo degday waanu ku faraxsannahay horta hore inaa waddankii ayaan sanado badan in diyaaradda ka soo degi karin oo caawa ugu horreysa aan soo laabannay oo equipment fiican oo dowladda Soomaaliya hagaajisay aad ugu faraxsannahay qalab fiican runway lights noo rakibay ilaa iyo 5000 feet ka soo aragnay ilaa 7 kilomitir wax lagu qiyaaso waan ku faraxsannahay dowladda Soomaaliya oo ku mahad celinayna qalabyo kale oo casri ah iyo adduunka ka jirna insha Allah waan rajaynaynaa insha Allah in loo kordhiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير كابتن إدريس هذا waxaan bilaay qoladii diyaaradda keeneen caawan bixina insha Allah first flight marka sida runtii aad baan u baxsanahay dowladda federaalka Soomaaliya government-ka shaqo fiican bay qabteen
waayo airportkan sanado badan lagama duulin haweenkii wala lagama kicin marka caawa waa history waa Juba Juba Airways marka they have the way to fly aad baan ku faraxsanahay waxaan u mahad celinaynaa dawladda federal government Soomaaliya ilaahay khayr ha u ziyaadiyo insha Allah sifa waxyaalaha kale ka dhiman qalabyaha oo latest technology-ga ay nagu kordhiyaan aad baan masantiin waana masantiin hadiya Hakiimo Xasan Aleeyra waxaa ilaahay ku mahadsan oo iyadoo habeena Muqdisho naga soo dejiyay xadaan ka imaanay jiddan waxaan ka imaanay xaramka ilaahay aana soo aruuriyay ilaahay xaram jid makeena garoonka inaan ku nabada habeenkii 2 saac alxamdulillah saa ku faraxsanahay dareenkaaga caawaas waa ku faraxsanahay aad u faraxsanahay alxamdulillah ilaahay ma hadda iskale oo diyaarad habeen madow ay ka soo degto garoonka waxaan ka cimid beydka ilaahay waxaan ku faraxsanahay cawada anoo airport ku soo degay ilaahay ilaahay habeenka 3 saac